hore waxaa laga yaabaa inaad u maqashay barnaamijka bandhiga buugaagta Laascaanood laakiin barnaamijkaas barnaamij ka duwan ayaa waxaa wada aadan iyo asxaabteeda barnaamijkan waxaa lahaa barnaamijka bandhiga buugaagta celiska Laascaanood haddaba muxuu yahay barnaamijkani waxaa ka waramaysa Huda Aadan oo ah qabanqaabiyaasha barnaamijkan bandhiga buugaagta celiska waa bandhig buugaageed laga iibfuray magaalada Laascaanood sanadii 2020 bishii Febraayo 27 oo ku beegneyd maalin Khamiis bandhiga buugaagta celiska waa carwo u agaasiman kala gadashada iyo kala bedelashada buugaagta hore loo soo isticmaalay fursadna u abuuraysa dhalinyarada aysan duruufta dhaqaale u saamixi karin inay gataan buugaag cusub buugaagta celiska waxa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan akhristayaasha iyo dhalinyarada ku sugan magaalada Laascaanood waxa bandhigan asaasay ama iibfuray dhalinyaro reer Laascaanood oo iskood isu xilqaamay waa markii koowaad ee laga asaaso ama laga iibfuro geeyiga Soomaalidu degto bandhigan oo kale bandhigani wuxuu iibfurmay 2020 bandhigan oo loogu talagalay inuu qabsoomi doono isla sanadkii labaad oo ah 27 bishii Febraayo 2021 oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan akhristayaasha magaalada Laascaanood bandhigani wuxuu fursad u abuurayaa dhalinyarada ku sugan magaalada waxa ku laaran buug iibsashada barnaamijyo loogu talagalay inay dhalinyaradu ka faa'iideystaan oo ah ahmiyadda uu akhrisku leeyahay iyo waxyaalaha laga faa'iido akhrista haddaba barnaamijkan oo ah mid sanadkii labaad qabsoomi doona sanadkii hore qabsoomay ayaa sanadkan wuxuu qabsoomi doonaa 27 February iyadoo waqtigan uu kala qabsoomo sanad walba bandhiga buugaagta celiska ah ee magaalada Laascaanood oo qabsoomi doona sanadkiisii labaad bandhigan waxa aanu aasaasnay oo aan hirgelinay sanadkii hore 2020 bishii February ee aynu hadda ku jirno sanadkan wuxuu qabsoomi doonaa isla bishii iyo maalintii oo ahayd oo ku beegnayd 27 February bandhigan waxa aan ugu talagalnay in ay ka faa'iideystaan dhalinyarada dhaqaalahooda uusan u saamaxayn in ay mar walba iibsadaan buugaag cusub si ay kor ugu qaadaan wax akhriskooda iyo una koriyaan garaadkooda insha Allah bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaan ugu baaqaynaa barnaamijka inay ka faa'iideystaan siiba dhalinyarada ku jirta goobaha waxbarasho ee kala duwan